السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دبادة برنامجka caafimaadka. barnaamijka caafimaadka maanta waxaan uga hadli doonaa whooping cough ama xiiq dheer, qofka siduu u yaqaano. whooping cough ama xiiq dheertu waxay ka mid tahay 6 cudur ee dilaaga ah, waxaana sababa bakteeriyada loo yaqaano Bordetella pertussis. xilli huuriska cudurkan waxa uu gaaraa 14 maalmood. waa maxay calaamadaha lagu garto cudurka xiiq dheerta? Number 1, cudurkan waxa uu ku bilowdaa ilmaha oo qufaca iyo sanka ilmaha oo diifka dureero. Number 2, 2 isbuuc kadib waxaa bilaawda codka xiiq dheerta. Number 3, ilmaha marka ay qufacayaan hawada waxa ay dib uga carartaa sanbabada iyada oo samaysa codka xiiq dheerta. Number 4, xiiq dheertu waxa ay u daran tahay ilmaha ka yar halka sano, sidaa daraaddeed waxaa wanaagsan in marka hore la talaalo carruurta. Siduu ku gudbaa cudurka xiiq dheerta? Cudurkan waxa uu ku fidaa hawada by droplet infection, wuxuuna inta badan ku dhacaa carruurta ka yar 5 sano. Sidee loo daaweeyaa cudurkan? Ampicillin capsule 500 mg, penicillin V tablet 250 mg, aspirin tablet. Frequently feeding and more drink. Carruurta yar halka sano ay ka yar yihiin in carruurta loogu dadaalo naas nuujin joogto ah.